xilligan amniga websitesku waa mid aad loo horumariyay ilaa websiteska qaar xilligan lagu adeegsado firewalls ka qayb ah amniga websiteskaasi balse haddana taasi kama dhigayso weli ku amnigoodu sugan yahay sababtu maxay tahay websitesku waa code markasta oo code jirana waxaa jiri kara errors iyo khaladaad ka dhacaya developerska khalad kastaana wuxuu sababi karaa hacking muuqaalkeena maanta waxaan soo qaadanaynaa macluumaad ku saabsan web hacking iyo sida uu dhaco kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta dhalinyaro websitesku waa kuwa xilligan aad u sare u kacday adeegsigoodu lehna qaybo kala duwan haddana sidaynu ognahay xilligan qayb kasta oo kamid ah teknolojiyadda casriga ahi waa target oo waxay target u tahay hackeriska raba inay wax ka bedelaan habka ay u shaqeynayaan si kooban hagareynta websitesku waa in website-kii laga dhigo inuu sameeyo waxyaabo aan lagu talagelin tusaale ahaan in login la dhihi karo iyadoo aan la soo gelin wax credential ah ama username iyo password ah in la arki karo xogaha dadka kale adeegsanaya websitekaasi in lagu soo upload gareyn karo files aan lagu talagelin oo malicious noqon kara in xitaa admin laga noqon karo websitekaasi mid kamid ah waxyaabaha ka dhigay web hacking-ka mid xiiso badanna waxaa kamid ah in marar badan aadan u baahan inaad hagareyso serverska ku kaydsan tahay websitekaasiba waxaana keliya laga faa'iideysanayaa oo khiyaano lagu sameynayaa logica websitekaasi uu ku shaqeynayo si aan soo qaadanay muuqaaladeena horena mindsetka ama fikirka hackeriskuna maahan keliya inay arkaan website waxay ka fikirayaan su'aalo sida backendiga websitekan input validation-ka uu leeyahay waa sidee iyo waxyaabahaasi ay ku ogaan karaan macluumaad u fududeyn kara hacking-ka noocyada hacking-ka ee websiteskana waxaa ugu caansan login bypass oo ah in si khaldan oo loo dhaafi karo login systemka websitekaasi waxaana taasi fududeyn karaa marar badan SQL injection waxaa sidoo kale kamid ah habka loo adeegsado hacking-ka websiteska file upload exploits oo ah in files malicious ah lagu soo upload gareeyo websitekaasi tusaale ahaan website-kii oo filayay lagu soo upload gareeyo sawiraan ama PDF ayaa la gelinayaa files PHP ah oo malicious ah haddii aanu lahayn input validation fiican waxa uu ran gareyn karaa malwareskaasi waxaa sidoo kale isna caan u ah cross-site scripting-ka dhammaanba hababkani waa kuwa inta badan guulaystaa websiteskana marar badan looma dhiso si amni ah oo laga yaabay in iyadoo deadline laga taxadirayo la maskareeyo security-ga websitekaasi ama la adeegsado AI oo aan laga fikirin security-ga websitekaasi oo kaliya tala soo saaro mid muuqaal ahaan qurux badan tools ugu caansan ee web hacking-ka loo adeegsana waxaa kamid ah Burp Suite oo aan marar hore soo qaadanay laguna dhexgeli karo oo interception lagu sameyn karo requesteska ama codsiyada u dhexeynaya isticmaalaha websiteka iyo serverska waxaa kamid ah Cobuster, Postman oo lagu tijaabiyo APIs-ka Webalizer oo lagu ogaado teknolojiyadaha uu websitekaasi adeegsanayo ee ku dhisan yahay inta ugu badanna toolskan way soo qaadanay adeegsigooda haddaba waxaa jira websites aad si free ah ama legal ah ugu practice gareyn karto web hacking-ka waxaana kamid ah OSAP Shop, DVWA waxaa sidoo kale wax badan oo web hacking-ka ku saabsan ka baran kartaa challenge-yada ku jira Hack the Box iyo Try Hack Me oo kamid ah websiteska ugu caansan ee si free uga baran karto ethical hacking-ka ugu dambeyn hagareynta websitesku maahan keliya hackernnimo balse wayna si fiican fahmi karto sida wax u shaqeynayaan una dhisi karto websites amni ah markasta oo website dhisaysan isweydii ka waran haddii la geliyo input aan la filayn sidee ayuu website uga falcelinayaa muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waxaan rajeynaynaa inuu isla fahanay concept-ka web hacking-ka hana ilaawina la wadaagto asxaabtaada mahadsanid